shir ballaaran oo ay maanta iskugu yimaadeen madax dhaqameed ganacsato odayaal iyo waxgarad ka kooban beesha degta koonfurta magaalada Hargeysa ee uu ka soo jeedo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta ka dhacay magaalada Hargeysa waxaana shirkani lagaga wada hadlay dacwad maalmihii u dambeeyay ay warbaahintu qoraysay oo la sheegay in qoyska madaxweyne Biixi ay ka gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe shirkan oo saacado badan qaatay ayaa waxa la isla meel dhigay in dacwadan ay qoyska madaxweynuhu ka gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga u cid ay tahay qalad aan la aqbali karin geesta kalena shirkani waxaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban 21 xubnood oo la sheegay inay ka soo tala bixin doonaan sidii ay waajihi lahaayeen dacwadani la sheegay in qoyska madaxweyne Biixi uu ka gudbiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe muddo 28 sanadood Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee xafiiska xeer ilaalintu qabto dacwad ka dhana gudoomiyaha xisbi mucaarid Cabdishabaab Maxamed Xuseen telefishinka Real Hargeysa.